waa laba qof oo haddana hal qof ah. Socodku waa ay tookeystaan, mid walbana lugta dhinaciisa xigta ayuu maamulaa. Nina ma dareemo lugta uusan lahayn xataa haddii la goynayo. Waxaan warbixintan ku eegi doonaa sida ay u nool yihiin wiilashan isku dheggan ee mataanaha ah. Muuqaalkoogu la yaabka leh ayaa sababay in waalidkii dhalay ay waddada ku xoraan. Sheekadan ayaan ku eegi doonaa mucjisada mataanahan iyo su'aal la doonayo inaad adigu ka jawaabto. Muuqaalkana sii faafi. Wiilashan wada dhashay waxaa lagu magacaabaa Sona iyo Mohna. Waa mataano hadda da'doodu ay dhan tahay 19 sano. Waxay ku dhasheen waddanka Hindiya. Markii ay dhasheen waxaa buuq badan hareeyay cisbitaalkii lagu umulay, waxaana dadku ay la yaabeen qaab samaysanka ilmahan yar. Sidan ayay isugu dheganaayeen tan iyo ilaa dhalashadoodii. Sona iyo Mohna waxa dhaqaatiirtu ay soo jeediyeen in la kala gooyo ilmahan yar, laakiin markii la isku dayay waxaa adkaatay in la fuliyo sababtoo ah suurtagal ma noqoneen in ay sii noolaadaan haddii la kala saaro. Arrinta la yaab kale waxay tahay markii ay dhasheen ilmahan yari ee mucjisada ah, waalidkii dhalay waa ay soo dayriyeen, waxaana ay ku soo tuureen banaanka. Sona iyo Mohna waxay ku soo koreen xarumaha xanaanada ee carruurta agoonta lagu koriyo. Iyaga oo isugu dheggan sidan, waxay barteen iskuulkii iyo waxbarashadii ilaa ay bilaabeen inay shaqo tagaan subaxii aroortii. Hadda waa 20 jiro waqtigu ay legdamayaan. Hal goob ayay ka wada shaqeeyaan Sona iyo Mohna. Waxaase xanuun ah in midkood uusan wax qabsan karin midka kale la'aantii. Haddii midkood ay hurdo qabato waxaa waajib ah in midka kale sariirta uu la saarnaado ilaa uu ka hurdabago. Waxay iskugu dheggan yihiin kaliya jir ahaan, laakiin waxay kala leeyihiin laba dareen. Tusaale, haddii Sona uu leeyahay wadne, Mohna waxa uu leeyahay wadne. Haddii Sona uu leeyahay beer, maskax iyo madax iyo gacmo, sidoo kale Mohna waa uu leeyahay intaasi. Laakiin waxay wadaagaan caloosha iyo lugaha oo midba lug uu leeyahay. Lugta midig waxaa leh Sona, halka midda bidix uu leeyahay Mohna. Nina ma dareemo lugta uusan lahayn xataa haddii laga goynayo. Waa cajiib abuurka Alle. Nolosha mataanahan ee la yaabka leh waxay cibro u tahay bini'aadamka oo dhan, gaar ahaan qoyskii dhalay ilmahan ee banaanka ku soo tuuray. Waraysi laga qaaday mataanahan waxa la weydiiyey bal inay ku fikirayaan guur iyo inay reer dhistaan. Midkood oo jawaabay waxa uu yiri, hadda waxaanu ku mashquulnaa shaqada, laakiin mustaqbalka waan jecelnahay inaan guursano. Waxa la weydiiyey hal naag miyaad guursan doontaan mise laba naag? Sona oo jawaabayay waxa uu yiri, suurtagal ma aha inaan guursano laba naag, waxaan isla guursan doonaa hal naag. Mana faahfaahin sababta. Si kastaba, dhaqaatiirtu waxay qireen inaan la kala goyn kareen walaalahan Sona iyo Mohna. Haddii la isku dayana ay noolaan kareen. Waxaase la isweydiinayaa, haddii midkood dhinto sidee ku sii noolaan karayaa midka kale? Allahu aclam. Bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag. Muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee.